ولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن. waxaan halkan saaka ka bilaabaynaa cashiro dhowr ah oo ku saabsan qoyska. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. cashiradan iyo silsiladaha taxanihii waa barnaamij aan u duubay hay-adda la yidhaahdo alminhaaj lilintaaj اliclaami. كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان walaalaha dhagaysanaya ama daawanaya waa silsiladii cashiradeenii taxanaha ahaa ee koobnaa aynu kaga hadlaynay qoyska iyo islaamka. waxaan hore uga soo hadalnay laba xalaqo ama laba cashir oo la xiriiray qoyska. haddana waxaynu qaadanaynaa ama ka hadlaynaa casharkii saddexaad oo arrimaha qoyska ku saabsan in sha allahu tacaala. cashiradan iyo silsiladaha taxanihii waa barnaamij aan u duubay hay-adda la yidhaahdo alminhaaj lilintaaj اliclaami. sharikada hay-adda minhaaj la yidhaahdo ee soo saarta barnaamijta iclaamiga ah gaar ahaan qeybteeda diiniga ah. cashirkeenna maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa, maadaama aynu ka soo hadalnay qoyska ahdaaftiisa iyo ahmiyaddiisa cashirkii koowaad, cashirkii labaadna aynu kaga soo hadalnay asaaska qoyska lagu dhisay ee labada qof ama qofka kula wadaagaya nolosha lagu qiimeynayo. markay labadaasi soo dhammaadaan ama tallaabadaasi soo dhammaata isdoorashada ah, dhismihii guriga iyo xiriirkii dadka dhex maraya labada isqaadanaya ee qoyska lafdhabarta u noqonaya ayaynu maanta ka hadlaynaa. cashirkeennuna ku saabsan yahay. waxaynu leenahay laba qodob baa muhiim ah. labada qodob ee casirkeenna maanta gaar ahaan ugu saabsan yahay sida kooban waxaa weeye xiriirka labada qof ee isguursanaya dhex maraya hadal iyo aragti, ama waxa curfiga sharcigeenna loo yaqaano alkhitbatu wa axkaamuha iyo aadaabteeda qayba ka mid a inta ugu muhiimsan, iyo qeybta labaad oo cashirkeenna ku saabsanaan doono oo caqdu zawaaji, guurka iyo dhismaha guriga munaasabadda reerku ay guri gelayaan. labadaasaan wax kooban ka tilmaami doonaa. wixii naga dhimanaadana dib baynu cashirka dambe ugu dhigan doonaa haddii alla yidhaahdo. masalada koobaad, labada qof hadday isguursanayaan waxaynu soo sheegnay waxay u baahan yihiin inay isfahmaan. laba qof oo isfahmi kartana noqdaan. sharcigeennu laba qadiyadoodba waa jideeye iyadoo aadaabta iyo anshaxa wanaagsan la ilaalinayo. labada qof kow inay is arkaan si qofba qofka kale inuu qanciyiyo in kale loo eego. nabigeena sala allahu alayh alih wasalam iyadoo qur-aanku horay raggu dumarka inay fiiriyaan reebay, dumarkuna ragga inay fiiriyaan la reebay, maadaama dareen shahwadeed ka dhaxeeyo, dabka shahwaduna halkaa ka qarxi karo. qur-aankana suuratu nuur ilaahay ku yihi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum. ragga waxaad ku tiraahdaa mu'miniinta indhahooda ha laabaan, farjigoodana xaaraamtaa ka xifdiyaan. nabiguna calayhi salaam waa kii yidhi
yaa caliyu laa tutbici nadrata nadra fainamaa laka aluulaa walaysat laka athaaniya. caliyow indhahaagu markay qof dumara ku dhacaan ha ku celin, tan hore kadis bay ahayd iyo kama kasna ma ahaynoo waa dembi ma laha, ta labaadee kusii xajinta ama ku celintihi waa dembi. dumarkan ilaahi subxaana wa tacaala waa kii ku yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun. dumarkana waxaa ku tidhaahdaa indhahoodana ha laabaan, farjigoodana xaraam ha ka xifdiyaan. waxay sidaas tahay waxaa la ogol yahay labada isguursanaya inay is arkaan. is araggaa la isqanciyeyna waa asaaska koobaad ee qoyska inuu sugnaado oo jiro, labada qofna isku qancaan keena wey. nabigana alai sl slam waxaa ka sugan jaabir ibnu cabdillahi xadiid laga warinayo inuu yidhi haddii ninkaydin kamid ihi uu qobo gabadh ama qof dumara doonayo falyandur ilayha, ha soo fiiriyo horta ha arko. riwaayadka qaarkood falyandur minha maa yadcuu ilaa nikaaxiha, haska fiiriyo waxa uu ku guursanayee isaga dookhiisu uu danaynayo ee inuu guursada ku xambaaraya ha ka eega gabadhi. gabadhani araggeeda, midabkeeda, muuqaalkeeda, itaalkeeda ma ku qanciye mise kuma qancin. dabcan marka uu eegayo iyadana xaq bay u yeelanaysaa inay aragto oo ay iska fiiriso ninkani ma qanciyey mise ma qancin. walidaalika cashirkii horaan kaga soo hadalay in dadku muuqaalka isku dafiri karaan, iskuna inkiri karaan. nabigu alai sl slam wuxuu yidhi ha fiiriya maa yadcuu ilaa nikaaxiha, wax gaara lama magacaabin, waayo dadka dookhooduna waa kala duwan yahay. sanadba qarniga iyo xilliga la joogana waxa quruxda loo yaqaanaa sideedaba way isbedbedeshaa. nin baa wuxuu guursaday gabar isaga la qurux badnayd, qolyo ay qaraabo yihiin bay gabadha quruxdeeda dhaliilay. markaasuu wuxuu ku yidhi, waxay ku yidhaahdeen warniyahow ma wax kalaad weyday? markaasuu yidhi niman yo anin bal dhinacayay ka soo istaaga, aniga dhinacaan ka taagnahay bal ka soo istaaga. maanaa isagana waa la qurux badan tahay, dad kalena lama quruxsana. nin odayana waxaa la yidhaahdaa wiilkiisaa gabadh guursaday, duqu gabadha itaalkeeduu dhaliilay, nin afxunna wuu ahaa. galabtii dambuu gurigii wiilkiisa yimid oo gabadhii joogto casariyi iyo shaah u soo doontay. isna gabadha inuu caayu rabo, oday akhlaaq xun wey. isagoo fadhiya markuu soo galay buu salaamay gabadhii. gabadhii wuxuu yidhi adeer maxaad fadhiga iigu salaami? wuxuu rabaa inu yidhah waad gaabanta, laakiin wuxuu yidhi maxaad fadhiga iigu salaami? wuxuu leeyahay taalkaagu fadhiba kama dheera. waxaan uga jeedaa wiilkana way qancisay oo isagaa intuu gabdhihii dhex maray buu ka doontay. sideedaba quruxdu qofba sibay ula muuqataa, qaaradba sibaa looga yaqaanaa. hadda adduunka marka lagu leeyahay qurux baa lagu tartamay, dadku waa kala dookhe. anigu haddaan arka qaar kale yidhi quruxda ay qaadeen, haddii la yidhaahdo qaar baanan koob shaahaba siisteen. haddana waxaa lagu leeyahay adduunka quruxda iyadaa qaaday. waxani asaasku waa labada qof inay isku qancaan, qofkani uu ku anfaca uu ku qanco. wax walbana aragtiday ka bilaabataa. saa darteed baa aragtidii fiirintii xaraamta ahayd baa la ogolaaday inuu fiiriyo oo si fiican u fiiriyo. nabigeena sala allahu alayh ali wasalam isagoo rag saxaabada ah la jooga baa gabari u timid, nafteeday u hibaysay. saxaabigu wuxuu yidhi fasacada fiiha nadara wa sawaba, kor iyo hoos buu eegay, markaasuu ka aamusay. nin meesha fadhiyay ula muuqatay isaga ay qancisay. wuxuu rasuulka ilaahayow haddii adigu aadan rabin anaa raalli koo aaduu rabay aniga igu dar, gabadh aniga igu dar. markaasuu wuxuu yidhi maxaad haysaa? orodoo waxaad meher uga dhigtay soo raadi. ninkii waxba waa soo waayey. wuxuu yidhi walaa faraati bir ana soo raadi. waa noqdo faraati bir ana waa soo waayey. qur-aan maxaad ka taqaanaa ilaa akhirkii qisada. waxaan rabaa inaan iraahdo nabigu waa fiiriyey sala allahu alayh wasalam markay arrin guur ugu timid. ninkanna waa fiiriyey,
nabigu kuma qancin laakiin ninkani waa ku qancay. dadka haddaba Soomaalidu qaar ba waxay tilmaamaan haddii la samaysan lahaa nin walba gacantaada gabadhaad guursan lahayd ku samaysa haddii la dhihi lahaa mid baa tan ugu fool xun samaysan lahaa bay yiraahdeen. nin baa yiri waa kuma ninkaasi ninka wax samaysan lahaa wuxuu waa midka haddaba qaba midka haddaba dumarka intuu dhex maray ka doorta iyada iyada uu samaysan lahaa. waxaan rabaa inaan iraahdo labada qof gabadhu ninka inuu qanciyo gabadhuna ninka qancisay aragtidu uga baahan tahay qoyskuna qanaacada qofka ku dhisan yahay dadka kale maxay qabaan kuma dhisna saasu sharci walidaalka nabi xadiidka mughira ibn shu'ba wuxuu ku yiri fa in fanzur ilayha idhab fanzur ilayha fa innahu ahra an yu'dama baynakuma ordo soo arag buu yiri taasa haboon inaad sii wada joogtaan mar haddaad aragto aragti kadibna isaqbashaan oo isguursataan iyaduna ay diidin adna aadan diidin laba qof oo aragtida isku qancay baatiin dhaqan wanaag iyo macaamilkii baa dhiman waxaa la ogol yahay marka gabadhu xataan ogeyn inuu ninku arko sharcigeenu gabdhaha sharafta uu siiyey curfigeena dhaqankana keenay baa waxay tahay waxa wax raadinaya ee wax daydeeya waa ragga qofka wax raadinaya shuruud baa lagu xiraa waa lagu adkeeyaa waa lagu dhibaa isagaa laga yaabaa dhib badan inuu u maro kolba manziladii iyo sharaftiisu shuruudda lagu xirayaa hoos bay u dhigaysaa gabadhu halka inay gaadha lama rabo sharafteedu inay ilaashanaataa la rabaayo qofka la raadinayo ee la daba ordaya iyadu ay noqoto saa darteed ninkii waxaa loo ogolaaday maadaama haddii lays arko dhib bay yeelan kartaa waa lays arkay ninkii haddii la yidhaahdo kuguma qancin badana xanuun aad u badan ragga kuma yeelata ama raad u badan laakiin ninkii hadduu yidhaahdo gabadha aniga kuma qancin dhib bay yeelan kartaa saa darteed baa waxaa la fasaxay iyadoon ogeyn xataa inuu arki karo xadiidka abi xumayd imaam axmed warinayey baa nabig sal wuxuu ku daray wa in kaanat laa taclam xataa haddaynan ogeyn waad fiirin kartaa waad soo arki kartaa waxaa kaloo nabigeena ka sugan alayh salatu wasalaam xilliga aragtidu labadaba way noqon kartaa markaad gabadha reerkooda inaad u sheegto oo tiraahda gabadhiinaan rabaa laakiin inaan arkaan doonayaa oodan luuqluuq iyo dariiqiyaba wareegin ood gabadha gurigooda ugu tagto ood gurigooda ku aragto innagu waxaan u malaynayaa baabka dumarka iyo qiirada carabtan ku xamanaa inaad u masayr badan yihiin dhaqanka carabtu waxaa weeye ninku gabadha uu rabo reerkooduu la xiriiraa gurigoodu ugu taga gurigooda fadhiga loo goglaa fadhigu ku arkaa labaad aad ugu kala duwanna banaanka markii la joogo xariim buu kuleeyahay banaanka ka fogow laakiin markay guur noqoto way naga jajaban yihiin labada waa inooga jajaban yihiin hadda waxaa la yidhaahdaa waxa ugu daran waa nimankan khaliijka dhaqanka ka jira waxaa weeye culimo iyo caamaba ninku gabadha markuu rabo inuu arko reerkooduu la xiriirayaa gurigoodaa lagu ballaminayaa uu ugu tegayaa halkaa fadhiga gees kamida bay ugu imanaysaa biyo iyo casbitaan iyo waxyiyada keenaysa halkaasay ku wada hadlayaan ku sheekaysanayaan intaa wax ka badan bay leeyihiin gabadhu marya guri lagu joogay qabtaa markay u imanayso cabuur bay qabtaa dhudhumada bartankooda u jooga gacmahana halkan cududaha iyo jijimaha u jooga madaxeeduna waa qaawan yahay markay u imanayso banaanka marka la joogana inaga de wax badan baan iska samaynaa markii guurha la isu arka la yidhaahdana waan iscadaadinaa waxoogay ciriiri baan isgelinaa marka iyaga madhabkooda wuxuu yahay ninku gabadha madaxeeda waa inuu arkaa gacmaheeda iyo dhudhumadeeda waa inuu arkaa lugaheeda iyo kubabkeedana waa inuu iska arkaa inta isagaba banaan isaga hadduu u badan yahay qamiis gacmahun baa qarsoona luguhana waa muuqdaan madaxiina waa muuqdaa sidaas oo kaleetay sameeyaan marka gabadha reerkooda inaad la xiriirto gabadhaan rabaa inaan arko hadba intii laga arki karana wuxuu madhabka dadka haystaan iyo curfiga ka jiraa saameynaya waxaa kaloo la ogol yahay inuu banaanka meelaha luuqyada iyo intuu istaago inuu arka inuu isku dayo labada khiyaarba laba khiyaaroo furan waay laakiin hal shardi baa ku xiran marka gabadha la arkayo inaan khalwiyi cidlo duur la isla tegin oo nabigeena alayhi salaam wuxuu yidhi laba rag iyo dumar haddee meel cidlaa isla tagaan ilaa kaana thaalithuhuma shaytaan shaydaan baa saddexaynaya
haddana wiilashii iyo gabdhihii meelo duur cidla iyo guryo aan la ogeyn hasku shukaansadaan markii la yidhi wax badan baa soo baxay. dhaqankan waxaan ugu soo baxay halla asturo la yidhaahdo. waa la sheekaysan waan ku jeclahay baa la isdhihi. meel duur cidliya meel baa la isugu tegi maalinka dambe gabadhii uur bayba leedahay. waxaasuu sharcigu ka cararayaa xaaraanta iyo dhaqankaa xuna. hadhow inuu ku inkiraa laga yaabaa, hadhow isagiiba inuu ka dhuntaa laga yaabaa, hadhow waxaa laga yaabaa in la yihahdo hala isku asturo uur bay leedahoo digdigiya la yihahdo ay soo baxday meherkaas ma asixin, uur bay lahaydoo ma asixin oo xaaraan baad ku wada joogtaan. ilmo wacaloon xaaraan ku dhashay daduusan xalkooda lahayn iyo raxiim u ahayn in lagu dhex daro intaasoo bale iyo musiibaa ka dhalata. taasaynan u dhicin khalwada iyo cidlo in la isla tago waa la diiday. ayib aragtidii haddii la isugu qancayo ka waran sawiradii, in sawir la isu diro ka waran. waxaan rabaa laba kelimadoodoo kooban inaan ka dhaho maadaama isla aragtidii qadiyadii aan ku jirno, ama saddexaan iraado. horta aragtida lifeka ah ee laba wadan la kala joogo dhibaato ma laha. haddiiba lays hor fadhiisan karay khalwana la diidanaa, laba meelood iyadoo la kala joogo barnaamijtan iyo brogaraamyada tv-ga ama kamerada la iska arkaay mushkilaad ma laha. haddii ay laakiin waxay ujeeddada fulinaysaa un haddii ay nadiif tahay. hadday camera nadiif oo qofka si u sawiraysata. sawirkan caadiga ee la isa siinayo asal ahaan sawirku haddii uu sawiruu qofku haye yahay qofka kale waa siin karaa waana u diri karaa si uu life kugu arki karay sawirkana waa u diri karaa. laakiin hal mushkilad baan ka digaya kelmadeeda ugu dambaysa. sawirku ogaada xaqiiqada kama turjumo, itaal kama turjumo, midab kama turjumo, qofka muuqaalkiisa dhabtaana kama turjumo. haddii sawirku sawir inuu ka turjumo loo qaaday uusan ahayn. sawirka footooyinka la galo kalar iga dhig baa la yidhaahdaa, cadiin iga dhig baa la yidhaahdaa, black and white baa la yidhaahdaa, xoogay buluu ka dambeysi, guduud ka dambeysi, casaan ka dambeysi, sida la rabaa loogu ciyaari karaa. itaalka qofka waxaa la dhihi karaa meel fog ka sawir. haddii intii meel fog laga sawiro weliba kaamerada afkeeda kor loogu yar qaado qof dheer buu ka dhigayaa, wax badan kama turjumayo. dhacdooyin badanoo waxaan aragnay sawir la isu diray iyo xaqiiqadii qofku ay kala fogaadeen. waxaa kaloon aragnay horeen aan hoga sheekeeyey qof sawirkeedii sawir aan ahayn ninkii u dirtay iyo nin sawirkiisii sawir aan ahayn gabadhii u diray. maxaa caddaynaya haddaba qofkan aad sheekaysanayseen sawirkan kiisiinu yahay maxaa caddaynaya? qadiyaddan marka la eega marar badan sawir la isu diray waa iska laqwi, wax macno oo samaynayo ma jiraan, waana la isku khaldi karaa. ilaahi ha laga boqo walow qofka la arkayaba la iskhaldi karo. dhacdooyinkii igu qariibsanaayen xaajadeeda gale waxaa ka mid ahaa nin gabar ay sheekaysteen aan is aragnana ku heshiiyeen. gabar saaxiibadaydoo sheekada la socotay ay u keentay oo uu la sheekaysto ay is arkeen. hadhow markuu reerkii intuu weydiistay loo meheriyeyna tu kale ay usoo guri gashay. lafteeda mixnad waaye, laakiin guurku daacad laga yahay unbaa jiraya, taasoo kale wax ma tarayso. qodobka kale arintaa la xiriiraay qofka dumarka ee xiriir guur lala samaynayo ee la arkayo ee lala hadlayo ee wax laga haasaawayaay waa inayna saddex midna ahayn. saddex midna waa inayna dhicin. tuwaan soo sheegno waa inaan cidlo la isla tegin oo khalwo oo wax dhici karaan waa inayna dhicin. laba waa inayna ahayn qof xaaraanba ka ah. qofta xaaraamta ka ah labay noqotaa waxa la yihahda alxurma almu'abada, weligeedba xaaraan bay kaa tahay. qaliyad gurdee loolama xiriiri karo, waa maxaarimtaadii, waa walaasha, adeer baad u tahay, abti baad u tahay iyo wixii lamidka hawey. ama qofaad horay u furto oo licaan idin dhex maray oo weligiinba idaan kulmi karin guur dambe, taa baabul khidba kuma jirta iyada. qaybta labaadi waa inayna muaqad ahayn. ta muaqadka waa dumar la qabo ama gaar qof la furay laakiin ciddadii rajciyadii ku jirta wey. iyadana sheeko guuriya arinteed laba mari kare dee qof reer leh iyo naag nin qabo inaad ka dul shukaansata lama ogola. waxaa kaloo intaa dheer waa in qof kaaga horeeyey meeshoo ku jira uunan jirin. haddii meesha rag kaaga horeeyo muslina ku jiro
كدبقالك يسكو فاللساد لما وقال نبي نحول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك قفنا قبر ويديستي أو الدوني يعني لقد بدوني إلا إساقوا أمو كتاقوا أما سيداكو قرسدو صدرت قبر نين مسلم الدوني لقما دبدوني كرو إنك لكن وحالي هذا كن باشو كان ستا كونا وقرسدا قبر دي طبان بيسكو دوا قرب ودي وين كينا طبان بيسكو قرب ودي waxaa kaloo naqaanaa gabar reerkoodii nin weydiistay qolo kale inay ka soo daba fadhiistaan oo la isku falliso kadibna mararka qaarkood sidii tafadhiig u dhiig badan qubto sidii qisadii tafadhiige ilaa aakhirka labada nin labada fallaadhe waabaydale ay isweydaarsadeen ninkii la dhihi jiray Ismaaciil Mirana gabaygii uu ku soo daray rago kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado tixda qaybtii kamid ahayd ee u dhihi jiray afxakama karkabadii u ay iyo kuleylkii ka dambe calu yiri intuu ka ha guursaday kii kalena kaal weyn u tumay kanina waabaydi baasha sunta leeyahay afka loo marin jiray falaara tago kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado marka waa dhici kartaa inay fitan iyo musiibo badan iyo muslimiintii kala dhimashadooda ay keeni taalama ogala inta kadib waxaan leenahay marka gabadha qofku uu la sheekaysanayo laba qaab iyo shariicadeena asalku waa sheekacad oo waan ku rabaa guur baan ka rabaa inaan ku guursadaan rabaa sidaas tooska cad waa sida asalka hal xaaladoo waxaa jirta aan la ogolayn toos cad laakiin sarbeeb iyo agamarinta la ogolyahay oo markay gabadhu ciddo ku jirto laga dhintay ama saddex dalqadood dhamaadeen ciddada intay ku jirta ninkii hore xaq uma laha ama wuba dhinto kuma noqon karaba ama xaqba uma laho saddexdii bay ka dhamaatay ciddada intay ku jirto si ayna isu dadajinin inaad dabada ka riixda lama ogola laakiin walaa junaha calaykum فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم لما لها وحي الصربابة قبضة كل هذا الشان هلان صرباته حاكمدة صفك وديري هاي هنضافين رقبة باكو الربا أذوك على هدان هيري لها رياضة سيداس أو كاليتا حلقة أولا لنيرد مرر بدن إنه يستان شريعة الإسلام كهدي اللي يسقور سنة يما قورة يتهي waxaa indho waaweyn ugu soo fiiri waay inuu indhaha laysu gududiyo gafuurka laysu taago ninkan gabar buu shukaansanaya shariicadu waxay ogoshahay mana aha waqti la shukaansan karo inuu sarbeebo aga marmariyo oo yidhahda rag badan baa ku rabi iyo adoo kale ayaa heli kara iyo safba dheer baa lagu jiraa iyo dee waxnaad nala socodsiisi iyo inaadanna dhaafin baa fiican iyo sheekooyinka saasoo kaleeto ay ka fahmi karta inuu doonayo aan laakiin waan ku doonayaa afku ballaarin ahayn baa gabadha ciddada ku jirta laga geeriyooday ama ciddada saddex dalqadood dhammaatay la ogolyahay intay ciddada ku jirto laakiin inaad hadalka intaa ka badan si bareera u sii dhahdo lama ogola labada qof markay sheekaysanayaan aadaab bay leedahay ka horta sheekadu inay waqti dheer qaadato sanadi iyo wax lamida qaadato sax maaha meelo xun bay ka degtaa waxaa kaloon la ogolayn sheekadu wax intaa ka hooseeya guur iyo rabitaan hoos inay u dhaadhacdo maanta dhan telefoon baa lagu wada hadlaya caawa dhan hal saaca la wada hadlaya abuwa fiiri abaya fiiri maxaa la fiiriyaa hojin waa la wada hadlay maanta caawa la wada hadlay wadnahayaa tahay qalbigayaa tahay abaya waa ku jeclay abuwa ku jeclay maanta dhan baa lagu celceliyay ayib isdhahde horey u soco hawshii dhammeeya ma jirto sanad baa la wada socona 2 sanaa la wada socona 4 sanaa la wada socona meelo xun baa lagu ballama wax badan oo xun baa dhacaya taa sax maaha maantoo dhan sheeko in la saaraado waxaa kaloon sax ahayn markaa la haasaawaye guur laga wada hadlayo meelo hoose iyo gogosha in loo dhaadhacaan sax ahayn saasaan noqonayna qaar wuxuu ku leeyahay dhalinyarada su-aalahan wax badan ku ogaanaa kula soo hadlaya gabaraan jecelaho guur ku heshiinay telefoonka macigasi haddaan hao banaan tahay uu kuleeyahay macdii waxaan dhahaa macda lama gaarine horta baasha intaa sharciyeysoo rasmiyeysa tallaabada xigta ee guurka ah samee halkaa munaasabadda waxaan uga faaidaysanaya inaan idhaahdo
wiilasha iyo gabdhaha dhalay guurka ha la fududeeyo. adduunku waa fasaaday, guurkiina waa yaraaday. haddaan guurka la fududayn meelo kaloo badan bay bahashu jabsanaysaa. wiilkaagana ma xakamayn kartid, gabadhaadana ma xukumi kartid. maanta waxaa yimid isbitaallo markii wax soo baxaba halkin inay irbada siinaya, weligaaba ma ogaanaysay gabadhaada. waxaa kaloo dhacday gabadhii inayba haween soo meelo soo marmartay lama ogaan karo. kolli iyo gaan baaba la isticmaalay, ama isbitaal baaba la tegi oo gabadhii gabadh baa laga soo dhigi markay usbuuc arooskeedu ka dhimaya, ama bahal yaroo kolli iyo gaam oo dukaamada yaryarka lagu gadaaba la ismarino meeshii dhanba inaan weligeed la marin ka dhigi. xaaladda sidaasa wiilashii iyo gabdhihii guurka ha la fududeeyo, yaan lagu adkayn. haddii kale gabadhaadana meel xun bay geli, wiilkaagana meel xun buu geli. adduunkana shahawaadkii iyo xumaatadii xataa telefoonada gacanta lagu wataa laga eegaya, laga daawanaya. intaa kadib hadday labadii qof soo heshiiyaan, aragtidiina isa soo qanciyaan, in la sharciyeeyo xiriirkoodii iyo wada socodkoodii iyo wixii dhex marayay in la sharciyeeyo oo guurkii iyo caqdigii iyo nikaaxii loo gudbaa loo baahan yahay. guurka iyo nikaaxu waa axkaamtan mashhuurkeed caankaa. majliskan oo kaleetana hadda goob kooban kuma soo koobi karna axkaamteeda, laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob tilmaamo. kow, nikaaxa waa in weligii iyo waalidkii gabadha la maraa. dadkan gabadha iyagaa dhalay ilaa ay gabadha intaa la eg ee quruxsan ay ku qancisay noqonaysay, dad baa ku soo dadaalayay. berri haddaa isku dhacdaanna iyagay dib ugu soo noqon. gabadhuna yaanay reerkooda iyo weligeeda kala dhuuman, ninkuna gabadha yaanu kala dhuuman oo yaanu si qalada u sasaban. nikaaxan masaafada iyo meherxadka iyo teeg aweyga iyo waxyaabahaasna xaaraam wey. nabigana casan waa ogtii inuu yihi laa nikaaxa ilaa biwaliyin, nikaax weli la-aan ma asaxo. waxaa kaloo yihi ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatil. haween kastooo guursata weligeedoon idnin nikaaxeeda waxba kama jiro. marka waxaan teeka weyga iyo wadaad baan meel uga yeedha iyo waan qudba siraysta iyo guurkaasoo dhan waxba kama jiro, iyo masaafo aan la aaday iyo dadka halaga daayo. mushkilad kalena qudbasiradii iyo masaafadii hoostayd way yeelatay. hadda wasaa'ilkii isgaarsiintii iyo gaadiidkii way dheereeyaan. 90 kilomitir ay fuqahada qaar sheegaan saacad baa lagu tagaa, saacadna waa laga soo noqdaa. gabadhii subaxii suuqa ka soo adeeg la yiri unbaahay weynta la saaro oo la soo celiyo, unbay haddana duhurkii reerka qadada u karin oo suuqii adeega way ka soo noqon. maanta waad soo yardaahday, kuwaan saaxiibanaya waxba ay qabsaday baa la dhihi. nin baabale way ii mehersan tahay. habeenkii iyo maalintiina luuqyadaasaa la isku arki. gabadhiiba waaba la qabaaba, aabaheed baa jooga mooga, hoyadeed baa jooga mooga. dhowr dhacdo dhibba way keenaysaa. gabadhii iyo ninkii waan qabay lahaa oo meel luuqa isla gelaya markii la arka dadun baa yaqaanoo labadooda garan. gabadh xun oo tumata macluumada ah warkaa wuu bixi. berri hadduu meher uur ku soo baxo maba la kala garanaya. gabadha nin meher xaday iyo gabadha wacal sideeda u qaaday lama kala garanayo. waayo mid walba waxay dhihi nin baa i meher xaday, markay rabtana ninkay rabta ay saari, marka dambana wuu inkiro wuu iga dhuuntay bay dhihi ree hebel buu ahaa ina hebel buu ahaa. qabaa'il baa nag isku dhihi. marka labaad, ninkani gabadha xilkeeda ma lagu aamini karaa lamaba yaqaanba. inuu been u sheegaa dhici karta, in laga soo hubsaday u baahnayd. saa darteed maalin kasta way meher xaday, saasuu yaalay, meher xaday, iga tegay qaylo. maalin waageedu baryo oo gabadh la meher xaday oo dacwo ah aynana soo marin waa naadir, way yarta. marka gabdhuha iska ilaaliyaan meher xadkana xatooyo xalaal ma noqotay iska daaye. saa darteed weligii waa in la maraa. shuhuud iyo markhaatina waa in loo yeelaa. markhaatigu wuxuu taraa hadhow meherkaa la isku qabsan karaa, say waxu dhaceen baa la isku qabsan karaa. ilmahan caloosha ku jira goormaa la isguursadaa la isqabsan karaa. kuwa isqabo ogol inay isqabaan baan ilmihii caloosha ku waday gar iyo licaan marinay. anu ma dhalinoo iyadoo wadatay ii timid oo markay ii timid ilma kama soo wareegin. markii horeyseen mehersay kama soo wareegin xilli ilmo lagu dhali kariyo bad iyo qaylo. maxaa lagaga badbaadi karaa hadhow haddii la isqabto? markhaati caddeeya. dadkana banaanka iyagoo wada socda haddii la arko markhaati caddeeya labada qof inay isqabaan oon xumaati iyo xaaraan ayna ku wada socon. waxaa kaloo loo baahan yahay in la iclaamiyo. guurka in la qariya maaha asalka guurka. nabig alay sl wuxuu faray in la iclaamiyo.
iclaanka guurka la iclaamiyana durbaaniya in loo garaaciyo waxyaabaha lamidka ah qayb ka qaata. gabadhana meherka loo magacaabayo in meher loo sameeyo, meherkan aan qaali laga dhigin. nabigeena cali waxaa ka sugan haween waxaa u khayr badan tan ugu meher guurkeediiyo ugu fudud yahay baa ugu baraka badan. xoolo qaali oo la bixiyey reerkan iyo kharashka iyo hodhow ku noolaan lahayn bay ka go-an tahay. deymo la galana waa un culays lasoo kordhiyey. labada dhinacba in la fududeeyo meherka iyo waliimada guurka, waxyaabahan digdamta ana laga daayo buu reerku si fiican ugu dhismi karaa. reer dhismay waa kii ku anfaca ee kii aada loo ciyaaray aada loo damaashaada ma aha. waxaan kusoo ururinayaa inta ugu dambaysa marka la aqal galaye meherkiiya dhammaadaan, ilaahay subxaana wa tacaala inta laga baqo xaaraanta ha laga daayo. guri baad dhisatay, weelna waad hoorsatay, rabbi baad inuu kuu barakeeye ka doonaysaa, xaraam inaad iskaga ilaalisaad doonaysaa, ilaahay duriya ilmo wanaagsan inuu ku siiyaad doonaysaa, gabadhaa inuu kuu barakeeyo ama wiilka ilaahay kuu barakeeyaad doonaysaa, weelkaad wax ku aasaastay ilaahay wanaag baan ka rabaa, dembiya macsiyadiisiina waan ku damaanshaadi, laba isqabata maaha. munaasabad kale aan kaga hadli doonaa haddii alla yidhahda casharada dhexdooda haddii loo baahda faahfaahinteede. waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado on kusoo gabagabeeyo guurkiiyo arooskuna mid sharciga waafaqsan in laga dhiga wey. sharcigu ciyaarta waa ogol yahay, ducada iyo xoolaha la qalaya waa ogol yahay, guriga la qurxinayo iyo gabadha lasoo sharxaya waa la ogol yahay. laakiin gabadha sida loo sharxayo iyo qaabka loo ciyaarayo iyo cuntada qaabka loo samaynayo sharcigu aadaab buu ka dejiyey. aadaabtaa in la ilaaliyay u baahan tahay. waxyaabuu sharcigu xaaraantinimeeyey, waxyaabaha uu xaaraantinimeeyey in laga ilaaliyo. oo waxaad ilaahay wanaagga ka rajaynaysay wax ilaahay ka cadhaysiiyo oo lacanad kuugu dhacdo aadan guriga ku aasaasin. ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala guryaheenna wanaag inuu inoogu sameeyo, inoogu barakeeyo, kuwa khayr ku aasaasmana inooga dhigo. cashirkan cashirka xiga intaan isaga iman doono oo aynu kaga hadli doonno qaabka qoyska loo maamulaayay waxaan idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. ولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن. waxaan halkan saaka ka bilaabaynaa cashiro dhowra oo ku saabsan qoyska. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. cashiradan iyo silsiladaha taxanihii waa barnaamij aan u duubay hay-adda la yidhaahdo alminhaaj lilintaaj اliclaami. كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا أن آمنوا بآيه وصدقوا به.